السلام عليكم. luqadda ingiriiska waxaa ku hadla milaayiin qof dunida oo idil balse waxaa horumarkeeda loolan ku hayaa tiknoolajiyadda iyo luqado kale oo la barxay su'aasha la isweydiin karase waxay tahay wadankee ay dadku ugu badan ku hadlaan luqadda ingiriiska jawaabtan waxay tahay waa dalka Shiinaha sida ku xusan daraasad ay sameysay laanta warbaahinta jaamacadda Cambridge in ka badan 350 milyan oo qof ayaa ku hadla luqadda ingiriiska ugu yaraan 100 milyan qof oo dadkaasi ka mid ah waxay ku nool yihiin dalka Hindiya dad badan oo Shiinaha ku nool ay luqadda ingiriiska tahay luqadda labaad waxayna ka badan yihiin dadka Mareykanka u dhashay ee Ingiriiska ay luqadooda hooyo u tahay casriga la joogo waxaa horumar laga gaaray fahanka luqadaha kala duwan kombiyuutarka wax tarjuma iyo aaladaha ogaan kara codadka ayaa qofka u sahli kara inuu luqadiisa uu ku hadlo kadibna qalabka wax tarjuma uu gudbiyo qofka kale xilligan la joogo haddii aad doonayso inaad samayso ganacsi caalami ah mise howl kale haddaadan aqoon u lahayn luqadda Ingiriiska dhibaato ayaa la kulmaysa inkastoo ay xaaladaha si degdeg ah isku bedelayaan Wang Qiumli oo ah saynisyahan u dhashay Kuuriyada Koonfureed kuna sugan jaamacadda Stanford ee California ayaa sameynaya aalad casri ah oo wax tarjumi karta sidoo kalena ogaan karta codadka taasoo dadka macaamiisha ka caawin doonta goobaha ganacsiga waxaana ku adkaan doonta dadka inay kala fahmaan inay la hadlayaan qof bani aadam ah ama computer luqadda Ingiriiska ayaa ku hadlaan dadka ku nool Hindiya ayaa la yiraahdaa English halka dalka Bangladesh loogu yaqaano Benglish luqadda Ingiriiska ayaa si weyn loogu isticmaalaa dunida gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Britain balse hadda waxaa sare u kacaya awoodda dhaqaalaha ee Shiinaha isla markaasna saameyn ku haya luqadda Ingiriiska dalka Mareykanka waxaa ku soo badanaya goobaha lagu barto luqadda Shiinaha sanadkii 2015 waxaa lagu soo waramay in tirada ardayda baranaysa luqadda Shiinaha ay laabantay muddo 2 sano gudahood dalka Uganda dhammaan iskuulada sare ardayda waxaa lagu baraa luqadda Ingiriiska waalidiinta dalkaasina caruurtooda luqadan ay u baraan sidii afkooda hooyo oo kale meelo badan oo dunida ah luqadda Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa inay tahay baasaboorka guusha waxaad nagala socoteen rajada iyo maanta intaan ku kulmayno mar kale waxaan iga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo haddaad ku cusub tahay channelka rajada iyo maanta fadlan subscribe sidoo kale gambaleelka riix si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalka xiga aan soo gelino mahadsanid